waxaa xabsiga dhexe ee xamar uu hadda ku xiran yahay laga sii deynayaa Sayd Cali Macalin Daawud oo ah ninka xaaskiisa sida arxan darrada u gubay isla markaana 2 jeer lagu xukumay dil toogasho ah. waxaa la kala qaadanayaa diya iyada oo maxkamadda hadda ay taalo warqad diyo codsasho ah taa oo ka timi carruurta ay dhashay Luul Cabdicasiis gaar ahaanna carruurtaasi aabihii dhalay oo codsaday in carruurtiisa la siiyo magdhow iyo diya maadaama ay hooyadood geeriyootay. aabbahan oo ah aabbaha dhalay ninkii 6 carruur ay u dhashay eebbaha u raxmada Luul Cabdicasiis ayaa dalbaday in carruurtiisa hanti iyo magdhow loo siiyo maadaama hooyadood ay geeriyootay isla markaana aysan dib dambe u soo noqonayn. waxaase muuqata in kiiskan uu yahay mid aad loogu soo shaqeeyay dalka Sacuudiga ayuu ku nool yahay ninkan diyada carruurtiisa u dalbaya. waxa uuna soo qoray warqad ka timid dalkaasi iyada oo hadda ay taalo maxkamadda gobolka Banaadir. warqadda oo aan helnay ayaa waxa ku qoran sidan: ujeedo caddayn ku saabsan diya qaadasho konsuliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Jidda waxa hor yimi muwaadinka magaciisu yahay Maxamed Cabdulaahi Warsame ina Madiino Weheliya Caraale ku dhashay Hiiraan sanadkii 1963 haystana dhalashada Soomaaliga ah iyo tan boqortooyada Sacuudi Carabiya. qoraalkan oo aad u dheer ayaa lagu yiri waxaan ahay aabbaha dhalay Allah u naxariistay Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi ina Kaaho Cusmaan Cageeya ku dhashay 22 bishii 1988 Muqdisho isla markaana carruurta ay u dhashay Luul Cabdicasiis. waxay Luul u dhashay wiilkaasi Maxamed Cabdirasaaq, Farxiye Cabdirasaaq, Cabdicasiis Cabdirasaaq, Cusmaan Cabdirasaaq, Imaad Cabdirasaaq iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq. carruurtayda hooyadood ninkii qabay ayaa dilay waxaanse u dalbayaa diyo. waxaa ku cad warqadan inuu isagu saxiixay sawirkiisa ayaa hoos kaga lifaaqan qaybta commentiga ayaan soo dhigayaa iyada oo faahfaahsan aad bal uga daawo halkaas. haddaba marka ay halkaas marayso dawladda Soomaaliya maxay ka tiri qoyska Luul Cabdicasiis maxaa uga furan? arrintan waxay u baahan tahay in si diiniya loo eego. Luul Cabdicasiis dhaxalkeega yaa lahaanaya ayaa sidoo kale imaanaysa. Luul 6 carruur ay ka tagtay 6daas carruur aabbahood waa uu geeriyooday waxaase nool aabbahood aabbihii dhalay oo carruurtiisa u dalbaya mag maadaama hooyadood la dilay aysan dib dambe u soo laabanayn. isaga ayaa ku saxiixan warqadan waxa uuna carruurtiisa u dalbayaa in la siiyo dhaqaale aad u badan maadaama ay hooyadeed geeriyootay si dhaqaalahaas ay u intifaacsadaan. warqadan waxay ka kooban tahay dhowr bog luqado kala duwan sida Soomaaliga, Ingiriiska iyo Carabiga ayaa ku qoran waxaana uu ku dalbanayaa in carruurtiisa la siiyo lacago ay sanado badan ku sii noolaadaan magdhow ahaanna ay u qaataan. hadda maxkamadda warqadan diyada lagu codsanaya ayaa hortaala ma waxay ka yeelaysaa go'aanka qoysku gaar ahaanna carruurtan aabbahood uu doonayo mise waxay ka yeelaysaa sida uu rabo aabe Cabdicasiis oo ah aabbaha dhalay eebbaha u raxmade Luul Cabdicasiis oo gabadhiisa si arxan darro ah loo gubay. waxaa muuqata in qoyska 2 garab loo qaybiyay iyada oo reer Cabdicasiis kolkii horeba cadaadis dhinacyo badan leh ay wajahayeen. saraakiil ku heeba Sayd Cali, ganacsato iyo dhalinyaro iyo dhammaan beeshiisa ayaa kolkii hore garab ku siinaysay in laga soo daayo xabsiga dhexe ee Xamar. dhowr jeer ayaa la isku dayay in xabsiga laga daayo haddase waxaa la helay xeelad xabsiga looga saarayo. daawadow arrinkan adigu sideed u aragtaa? maxayse kula muuqataa kiiskan inuu ku soo idlaan doono? aragtidaada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. muuqaalka like saar siina sheer garee aad ayaad u mahadsan tahay daawade.